xaaladaha dadka la nool xanuunada dhimirka Soomaaliya kaliya waxaa helo tiro aad u yar adeegyadaasi ay u baahan yihiin dadkaasi adeegyada ay helaanne waxay ku xiran tahay aqoonta iyo garashada dadka ay la nool yihiin inta badan waxaan aragnaa dadkaasi inay u nugul yihiin tacdiyada ka dhex jiro deegaanka caay handadaad iyo jirdil sidaas la mid ah waxaa jira waxaa soo raacdo meelaha ilaajka ah waxay u baahan yihiin in loo sameeyo tababaro wacyigelin iyo meelaha quraan saarka ah waxaa arkaysa qof xanuunkii qabo kale ku sheegaya inay sixir qabo ama waxyaalo la mid ah sidaas darteed waxay u baahan yihiin dadkaasi ka howlan quraanka saarka iyo meelaha ilaajka ah in loo sameeyo tababaro iyo wacyigelin dadkaasi midda kale ugu muhiimsan waxay tahay in dadka xanuunka la nool waxaa loola baahan yahay in loo dhaqmo si wanaagsan ixtiraam ku jirto kaliya dadka dhimirka la ama maskaxda ka xanuunsan dadka waalan oo kaliya oo dadka loogu yeero ma ahan oo kaliya waxaa qabi kartaa qayb ka mid xanuunka dhimirka tusaale ahaan haddii aad baranbara ka cabsanaysid waxaa qabtaa xanuun dhimireed ayaa qabtaa waxaa kaloo ka mid ah haddii aad shaki badan taho kale 5 jeer albaabka xiraysid oo kale hubinaysid nalka inuu dansan yahay xanuunadaas waxaa la lahaa qayb ka mid ah xanuunada dhimirka waxaa loo kala qaybiyaa mid fudud iyo mid culus midka culus waxaa waaye dadka in ay waashaan oo kale laakiin dadka aan ka soo sheekeynay oo ah dadka shakiga badan oo kale iyo dadka baranbarada qaban oo kale in ay u baahan yihiin ka cabsanayo kale inay u baahan yihiin in ay bulshada macooda la soo xiriiraan dhakhtarka la soo xiriiraan waxbayna ay ka qaataan